garsooraha maxkamadda sare ee dalkani Kenya Maxamed Ibraahin ayaa lagu soo waramayaa in uu maanta geeriyooday siday xaqiijiyeen qoyskiisa. Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin ayaa ku geeriyooday maanta oo Arbaca isbitaal ku yaalo magaalada Nairobi kadib xanuun kooban oo ku soo booday taasi oo soo afjartay shaqadiisa garsoornimo oo uu ku jiray muddo ka badan 40 sano. garsoore Maxamed Ibraahin ayaa ka mid ahaa garsoorayaasha ugu horeeyay maxkamadda sare ee dastuuriga ee dalka kadib markii la magacaabay sanadkii 2011 xilligii dalka laga hirgeliyay dastuurka 2010 inta uu xilka hay Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu door muuqda ka qaatay go'aamo waaweyn oo la xiriira dastuurka doorashooyinka iyo ilaalinta sharciga sidoo kale waxa uu ka tirsanaa guddiga adeega garsoorka ee loo soo gaabiyay JSC wuxuuna ahaa gudoomiyihii guddiga garsoorka ee arrimaha doorashooyinka. Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin ayaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali Kenyana oo noqday qareen isla markaana jabiyay caqabado badan oo ku horgudbana bulshooyinka la heebsooco. geeridiisa ayaa murugo weyn ku reebtay qoyskiisa bahda sharciga iyo guud ahaanba shacabka dalkani Kenya. haddaba kuma ahaa garsoore Maxamed Ibraahin garsooraha sare maxkamadda Supreme Court Allah u naxariistay Maxamed Ibraahin ayaa shaqada garsoornimo lagu waday inuu ka fariisto 1 Janaayo sanadkan ugu soo aadan ee 2026 oo ay howlgabnimadiisa shaqo ku beegneed kadib markii uu gaaray da'da xadka dastuuriga ee 70 sano isagoo ka tirsanaa garsoorka dalka muddo ka badan 23 sano. Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu ahaa qareenkii ugu horeeyay ee ka soo jeeday bulshada Soomaaliyeed ee loo diiwaangeliyay qareen ahaan ama advocate waxaana uu shaqada garsoornimo uu ku soo biiray 1 Janaayo sanadii 1983. Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu dhashay 1 Janaayo sanadii 1956. garsoore Maxamed Ibraahin Allah u naxariistay waxa lagu waday inuu soo gabagabeeyo mid ka mid ah safarada ugu dheer ee adeega cadaaladda dalkani Kenya safar socday ku dhawaad rubuc qarni balse taariikhda ninkan sharci yaqaanka waxay ka bilaabatay meel aad uga fog kuraasta maxkamadaha waxayna ka bilaabatay miyiga waqooyiga halkaasi oo uu ka soo baxay isagoo riyo weyn iyo wadaniyad qoto dheer leh. Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu dhashay 1 Janaayo sanadii 1956 qoys Soomaaliyeed oo ku caan baxay ixtiraamka aqoonta iyo maamulka bulshada. yaraantiisa Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu ku barbaaray jawi ay muhiimad gaar ah ku lahaayeen dhaqanka diinta iyo xushmeynta dadka. garsoore Maxamed Ibraahin waxbarashadiisa ugu horeysay miyiga waxay ahayd dugsiga Quraanka isagoona masaajidada ka baran jiray duruusta diiniga oo ay ahayd goobihii ugu horeysay ee uu kaga dhashay hamiga uu qaba cadaaladda. waalidkiisa waxay ku dhiirigeliyeen akhriska iyo raadinta waxbarashada xilli dhibaato badan oo amni iyo dhaqaale burbur ay wajahayeen bulshada Soomaaliyeed. wuxuu ahaa arday aad u degan firfircoon oo leh karti uu ku fahmo xaaladaha dalka iyo duruufaha bulshada taasi oo mustaqbalka ka dhigtay garsoore si weyn loo tixgeliyo. safarkiisa waxbarasho Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin uma ahayn safar fudud ka hor inta uusan u wareegin Nairobi oo uu markaasi ka dhameystay dugsiga sare. markii dambe waxa uu galay jaamacadda Nairobi halkaasi oo uu ka bartay sharciga. ardayda iyo macallimiinta jaamacaddu waxay ku xasuustaan nin aad u aamusan hadalkiisa kooban yahay balse aad ugu adag doodaha cadaaladda markay taagan tahay. kadib jaamacaddiisa Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu galay dugsi lagu barto culuumta sharciga ee Kenya School of Law isagoo 11 Janaayo sanadii 1983 noqday qareenkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee Kenya ka noqday advocate aba qareen taasi oo noqotay taariikh cusub oo albaab u furtay jiilal badan oo ka soo jeeda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka. Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu caan ku ahaa qareen u taagan xuquuqda muwaadinka difaaca xorriyadda hadalka iyo dagaalka dulmiga ee dowladnimada xooga ku dhisan. intii lagu guda jiray xukunkii Kanu gaar ahaan waagii madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya Daniel Toroitich Arap Moi Allah u naxariistay garsooruhu waxa uu ka mid noqday kooxihii qareenada ahaa ee hormuudka ka ah halganka dimuqraadiyadda. doodihiisa xoogan iyo astaanta xuquuqda shacabka waxay ku keentay cadaadis cabsigelin iyo xitaa in xukuumadda Kanu ay xabsiga u taxaabtay garsoore Maxamed Ibraahin. laakiin ma uusan noqonin nin ka leexday hadafkiisa cadaaladda waxa uuna si cad markaasi uga soo horjeestay sharciyo lagu caburinayo dadka wuxuuna difaacay siyaasiyiin iyo arday lagu cadaadinayay codsiga dimuqraadiyadda.
doodahaasi iyo doorka uu ka qaatay jabinta caburinta siyaasadeed waxay ka dhigeen hali sharciyeed oo ilaa iyo maanta lagu xasuusto kadib sanada uu qareen ka maxkamadda dalka Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa loo magacaabay garsoore muddo 23 sano ah oo markaasi garsoorka dalka ka tirsanaa wuxuu soo qabtay shaqooyin muhiim ah oo heer qaran sanadka 2011 markii la dhisay maxkamadda sare ee dalkan Kenya ee Supreme Court waxaa lagu daray 5 garsoore oo ugu horeysay dhismaha maxkamaddaasi isagoo noqday mid ka mid ah tiirarka asaaska wuxuu xaliyay dacwooyin culus oo saameyn ku yeeshay dalkan Kenya oo ay ku jiraan arrimo doorasho muran sharciyo iyo dacwooyin dastuur Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu caan ku yahay garsoor dhexdhexaad hadal yar qoraal caad iyo in uusan u janjeerin cidna taasi oo ay malaayiin Kenyan ku khasabtayba in ay u muujiyaan ixtiraam iyo kalsooni Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin wuxuu tusaale u yahay in xirfadda dulqaadka iyo daacadnimada ay qof kasta gaarsiin karaan heer sare xitaa haddii uu ka soo jeedo deegaan aad sabool u ah ama bulsho la takooro xasuusaha aan marna ka bixin maanka Kenyaanka ayaa ah doorashadii 2013 ee dalkan Kenya ka dhacday markii wareegga koowaad ee doorashada madaxweynaha Kenya la qabtay 4 Maarso sanadkii 2013 Uhuru Kenyatta ayaa waxa guddiga doorashooyinka IEBC ay ku dhawaaqeen inuu yahay madaxweynaha la doortay halka ra'iisul wasaare hore dalka Raila Amolo Odinga uu muran ka keenay isagoo sheegay inuu ku guuleystay doorashadii dhacday 2013 oo guddiga doorashooyinka xuduudaha dalka ee IEBC ay ugu shubeen Uhuru Kenyatta isagoona raafaan u gudbiyay maxkamadda sare ee dalka Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin waxa uu kamid ah 6 garsoore maxkamaddu ay markaas u xil saartay iyagoona 30 Maarso 2013 doorashadaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday 16 Juun 2016 Dr. Willy Mutunga oo ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkan Kenya tan iyo Juun 2011 ayaa go'aansaday inuu shaqada garsoornimo uu ka fariisto waxaana uu u magacaabay garsoore Maxamed Ibraahin oo ahaa garsooraha ugu darajada sare ee maxkamadda ku haray inuu noqdo kusimaha madaxweynaha maxkamadda sare ee dalkan Kenya ee Supreme Court inta lagu guda jiro sidii loo soo xulan lahaa gudoomiyaha cusub Allah u naxariistay garsoore Maxamed Ibraahin oo maanta tii Rabbi ay ku timid waxa uu ka tagay magac ku xardhan buugga taariikhda Kenya garsoore aan la ilaabi karin oo u adkaystay cadaadis siyaasadeed kana shaqeeyay cadaalad loo siman yahay